kusoo dhawaada dhisidda bulshadu waa barnaamij taxano ah oo idinka yimaada xarunta wacyigelinta iyo cilmi baarista ee ogaal. xaruntu waxay ku howlan tahay inay dadka Soomaaliyeed usoo gudbiso hadba mawduucii la isleeyahay uu anfacaya ummadda una baahan in laga wacyigeliyo dadka. mawduuca galabta waa mawduucii labaad ee ay idiin soo gudbiso xaruntu, iyada oo mawduucii koowaad ee hore uu ahaa mawduuc ku saabsan farqiga u dhaxeeya ama kala duwanaanshaha dawlad iyo xukuumad. mawduuca galabta wuxuu ku saabsan yahay wadaniyadda. mawduuca wadaniyaddu waa mawduuc ballaaran oo u baahan in si fiican loo faaqido loona falanqeeyo. mawduuca galabta waxaa igala qayb qaadan doona laba aqoon-yahan oo kala ah Cabdimajiid Caynte iyo Maxamed Nuur. barnaamijkuna waa noo furan yahay. Cabdimajiid. Abdullahi aad baa mahadsan tahay. sidoo kale saaxiibkay martida Maxamed Nuur asagoo salaamiya daawadayaasha sidoo kale maanta salaamiya. runtii mawduucan waa mawduuc aad iyo aad muhiim u ah, gaar ahaan lagama maarmo markii la doonayo bulsho in la dhiso. waana mawduuc aad u malaysano aad ugu dhow yahay mawduucii hore aan kasoo sheekeyn. wadaniyaddu waxaa la yidhaahdaa waa wax qofka la barayo, qaababka lagu barayna macnaha ay kala duwan yihiin. inta badan dhallaanka markii yaryihiin ama ubadka yaraanta baa lagu soo baraa, waxaa lagu sheekeeyaa dalka qiimuhu leeyahay iyo dalkiisu inuu fiican yahay. waayo waxaa la yidhahdaa qofka markuu ogaado sheegan qiimaha ugu fadhiyo buu wuxuu bixinayaa abaalka uu ka mudnaa uu gelinayaa, macnaa laga helayaa. sidaa daraadeed sheekeyntaas taariikhda looga sheekeynayo ubadka waxay ku abuureysaa dalka inay hilow u qabto, inay taariikhdiisa bartaan, deegaankiisa bartaan, يعني خيرات كيس كل دوم بتاع بدها هديته وبيها هديته. وحاكم أيضا لقى أوجان كرني منهج وحبر الشر ذلك صوته ضدك وإن وبرع وحبر الشر ذلك وحويه هدي أغفق ذلك الله وشاكين وحبر الشر سقوق هذا معنا من قرني تصال عنه حركة سقفك ودن كيسون وسمع معلومات بدن كهينين ووضن كلمات كنتكش الشيء وفصلت أهل مع بدأ أول شيء يعني أما بوال لا أقرأ كلام intuu daalacdo kadib uu jecel u qaado uusan wadankiisa hor asraka uusan u qabin. sidaa daraadeed wadaniyadu waa waxun qofka qiimaha dalkiisa ugu fadhiya macnaha u ziyaadinaysa. qofka markuu dareemo wadankiisa wuxuu yahay iyo wuxuu ka kooban yahay iyo wuxuu gaarku u leeyahay wuxuu ka soconaya uu sumad oo yeelanayaa wadamo kale inaysan uga darsanin. wadaniyadu waa iska mawduuc ballaaran soo sheegnayba, waana mawduuc aad u malayso inta badan in xooga aad noogu weelaya. wadaniyadda marka la soo koobo waxaa la yidhahdaa waa qofka oo u badaara ama wajaha dalkiisa inuu ka egsado wax kasoo dhibaato ah, naftiisa, maalkiisa, caqligiisa wuxuu ugu difaaci kara dhulkaas uga difaaco, isla markaana usoo jiidi kara wax kastoo wanaaga horumar keeni kara, haddii noqoto mid dhaqaale, mid bulsho, mid waxbarasho, mid wax soo saareed baa waxaa la yidhahdaa wadaniyadda. iyadoo mawduuc u ballaaran yahay asxaab badan marti inay ka qayb qaadan doonaan, waxaan gunaanadi lahaa oran lahaa ummadda Soomaaliyeed ku baraarujin lahaa in mawduucan wadaniyad uu yahay mawduuc muhiim ah oo aan looga maarmin, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed maadaama soddon sano aan soo marnay burbur dawladeed ah, mid bulshada, mid siyaasadeed, mid dhaqaalaba. si dib dambe aan ugu yeelnaa qarankii Soomaaliyeed oo xoogan meel kasta doonto ummad Soomaaliyeed ku noolaatee waxaa loo baahan doonaa qofka inuu ogaado qiimaha wadaniyadda iyo waxay tahay. aad baa mahadsantahay Maxamed. kusoo dhawow barnaamijka galabta adiga oo wadaniyadii iyo wixii qayb si fiican uga qayb qaadan doona oo dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay fahmaan wadaniyadda. Maxamed, wadaniyaddu sideedaba waa mawduuc dadku wax ay dadku dhan wada yaqaanaan. hebel waa wadani, heblaay waa wadaniyad, hebel wadani maaha, heblaay wadaniyad maaha, wadaniyad dadku way maqlaan, laakiin maxay tahay baan u baahnay dadka inaan galabta la wadaagno. kusoo dhawow marka hore barnaamijka. Cabdullahi waa mahadsan tahay. mawduucan waa mawduuc muhiim ah runtii oo baahi weyn ay bulshadeenu u qabto. sababtoo ah hadalkiisuna waa badan yahay, aadna waxaad moodaa inaan dadku aysan u fahansanayn. marka mawduuca si fiican baan ugu geli doonaa, laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo wadaniyadu wax la barto weeye.
waxbarashadaas laba qaybood ama laba dhinac bay ka kala imaan kartaa. dhinac waxaa weeye wax iskuullada lagu dhigi karo oo qofka oo la baro maaragtay wadankiisa iyo dadkiisa iyo dalkaasi wuxuu kaga fiican yahay dalalka kale iyo adigu kheyraadkiisa iyo marka qofkii wadankiisii la jeclaysiiyo oo waxbarasho manhajaysan uu ku barto. manhajka dugsiyada waxbarashada ee dalka. qaybta labaadna waxa weeye waxbarashada bulshada ka timaada ee aan tooska ahayn. weliba bulshadeenu waa bulsho oraaheed. waxaa badan aqoonta isugu gudbiyaan afka baa aad u fara badan. marka tusaale ahaan qofku qabiilka uu yahay iyo reerka uu kasoo jeedo wuxuu ku bartaa qaab aan ahayn si toosa oo wuxuu ka bartaa afafka dadka isaga ka waaweyn ehelkiisa qaraabadiisa wuu ka bartaa ilaa uu ku takhasuso oo uu gaarsiin karo laga yaabo inuu 30 oday 40 oday uu tirin karo abtirsiyihiisa. taas ma aha marka wuxuu dugsi u tagay oo uu kasoo bartay maaha, laakiin wuxuu ka bartay bulshadu ka bartay qayb ka mid ah bulshada. saa daraadeed waxaa la yiraahdaa qofku saddex waxyaabood baa ku hareereysan qofka Soomaaliga. tusaale ahaan haddii aan hoos ugu degnaba saddex arrimood baa ku hareereysan oo uu siyaabo kala duwan u bartaa. waxa weeye mid way ka yartaa marka labada kale. mid waxa weeye waa diintiisa, sababtoo waxaa ku xiran arrimihiisa adduunka iyo dhaqankiisa aakhiradiisa ku xiran, cibaadadiisa ku xiran. marka taas dugsiyana waa u tagaa, dadkana waa ka bartaa iyo masaajidii iyo wix walba. midda labaadna waxa weeye waa ahaanshihiisa, reerka uu yahay iyo gobolka uu kasoo jeedo gaar ahaan, iyo iyadana wuxuu ka bartaa deegaankiisa iyo deegaankiisa, aabihiisa iyo hooyadiisa iyo sheekooyinka waalidka iyo ayeeyooyinka iyo awowayaasha ka barta. midda saddexaad hoos xoogaa aad mooday in aysan helin sidii loo baahnaa aan loo baran waa dhinaca wadaniyadda. marka inta badanna hadda wixii ka dambeeyay burburka ma jirin manaahiij rasmi ah oo dalku leeyahay. dadku waxay ku baranayeen ubadka soo koray, waxay ku baranayeen manaahiij dalal kale ayay wax ku baranayeen. saa daraadeed waxaa arkaysaa qof wadankii u dhashay laakiin haddana aan garanaynin wadankii aan kala garanaynin deegaankiisii iyo dadkiisii iyo aqoon badan aan u lahayn, laakiin wadamo kala yaqaana juqraafigoodii iyo kheyraadkoodii iyo dadkay kala yihiin iyo kala sharaxaya oo xaafidsan. marka tan wey midda u baahnaan lahayn in manaahijtan ay ku jirto dugsiyada, sidoo kalena dadkana ay maaragtay garanayaan oo marka ay ubadka uga sheekeeyaan. marka oo mawduuc aada u ballaaran runtii muhiimna ah. qaybaha dambe barnaamijkana aan si fiican ugu jeexjeexi doono. marka inta hore halkaasaan aad buu mahadsantahay maxamedow. wadaniyad marka la yiraahdo dadku waxyaalo badan bay isweydiiyaan. wadaniyad ereygaas marka lasoo kabo erey kooban, laakiin wuxuu u baahan in la fahmo. waxaana jira ereyo badan ama conceptiyo hoos yimaada ereygaas. wadaniyad marka la yiraahdo waxaa lagu qeexaa wadaniyaddu inay tahay laba arrimood inay isugu jirto: jacaylka dalkaaga aad jeceshahay iyo aqoon aad u leedahay dalkaaga, iyo dalkaaga inuu kaaga fiican yahay dalalka dunida oo dhan. waayo isaga tahay hadduu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba dalku waa dalkaagii. marka mawduucii ka horreeyay waxaan kusoo qaadan farqiga u dhexeeya dawlad iyo xukuumad. markaynu dawladda qeexaynay
waxaynu ku sheegnay inay tahay dal leh dad iyo dhul iyo astaan qarannimo iyo waxyaalo badan. waxaa ka mid ahay dhul. dalku waxa weeye waa dhul la yaqaano cayiman oo xuduud leh, dal dad deganna leh oo citizenisa oo dalkaa dadkii iska lahaa ah oo la yaqaano. sida Soomaali, Kenyaan, nacam, Nigeria, USA, saas oo kale, Ingiriiska. waa dal la yaqaano, adduunka yaqaano, calan leh oo nidaam dowladnimo iyo xukun leh oo meel degan oo la yaqaano. dadkiisu way kala duwanaan karaan, luqadda waa lagu kala duwanaan karaa, afka dhaqanka waa lagu kala duwanaan karaa, diinta waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin wadaniyad marka la yihahdo waxay ku tusaysaa midnimo. macnaha dalkaas caanka oo calanka leh, dowladda leh, nidaamka leh, oo xuduudda juqraafiya la yaqaano leh, yaa dadka ku noolin noocay doonaan ha ahaadeen inay mid yihiin. dee Soomaalidu iyadu waxayba leedahay maxamedow wax gooniyo ilaahay siiyey oo ah inay ka midaysan yihiin waxyaalaha ummadaha kale ku kala gedisan yihiin. diversity waxaa loo yaqaano, inkastoo ay lafteedu waxyaala badan fiican ay leedahay, laakiin Soomaalidu waa dad hal isku mid ah oo diintii iyo dhaqankii iyo afkii iyo midabkii oo isku wada mid ah. marka iyadu unity-geeda waxaa la rabaa inagoo mawduuca unity-ga ama midnimada gadaal maxaan mawduuca xaggiisa dambe ama dhexda ugu tegi doona oo si fiican isagana uga hadli doona. haddana midnimadu inay Soomaalidu ka duwanaato ummadaha kale bay ahayd, waa u tegi doonaa. marka wadaniyadda waa mawduuca ballaaran ay hoos yimaadaan mawaadiic iyaguna waaweyn oo hoos yimaada. ay ka mid tahay dal jacaylka oo kale, inuu qofku dalkiisa barto, dalkiisa inuu qofku barto muxuu yahay dalkaa, muxuu leeyahay khayraad, juqraafigiisa xaguu ku yaala, dadkiisu maxay yihiin, maxaa mideeya, oo dhaqankii iyo waxyaalahan maxaa loo yaqaanaa customka waxyaala customiska ama maxaa loo yaqaan waa dhaqan adiga dhaqanka qaybihiisa kala duwan, xeerarka, nidaamka loo nool yahay in qofku yaqaano barto, kadibna jeclaado dalkiisa. waxaa jirta mawduuc hoos yimaado oo isagana la yiraahdo patriotism, afka qalaad lagu yiraahdo, oo ah qofku inuu aad u jecel yahay, caashaqsan yahay dhulkiisa iyo dalkiisa, si fiican buu u jecel yahay, dhibkiisu neceb yahay. markuu jecel yahay macnaha waxa weeye dalkaas ma jecla in dhib uu aad buga xun yahay, dhib inuu yimaado dalkaas soo gaadho, cid dibadda ah ama ay dulmi ku haysiyo dhibaato, ama dad guduhu ay dalkaa baabiinayaan, kala qaybinayaan, kala goynayaan. marka jacayl iyo patriotism qofku inuu leeyahay iyo inuu dadkiisa midnimo uu la doono mar walbaba inay hal ul yihiin oo isku mowqif yihiin. marka Cabdimajiidow markaynu sidaa u eegno oo dal jacaylkii iyo midnimadii iyo wadaniyadii aan saas ku soo xoorino, maxaad odhan lahayd dadka Soomaalida marka loo fiiriyo dadka Soomaalida? okay, dadka Soomaalidu meelo badan bay degan yihiin. Kenya Soomaali baa degan, Ethiopia Soomaali baa degan, Djibouti Soomaali baa degan, iyo Somali Republic oo iyaduna wada Soomaali ah. marka mawduucyadan aad eegto wadaniyadda iyo Soomaalida marka isku fiiriso, seebay kula muuqataa? Soomaali ma wadaniyiin baa, ma dad wadaniyadda fahansan baa, mise dad aan fahansanin? inagoo weliba u iman doona ku darso u iman doona waxyaalo fara badan maxamedow la isla dhex maro oo Soomaalidu ay dadka kala qaybiso, tira hebel waa wadani, hebel wadani maaha, wax noocaas u tegi doona. marka haddaynu hadda ku koobsano Soomaalidu ma wadaniyad baa, afwan ma muwaadiniin baa, mise ma fahansan yihiin wadaniyadda? marka Soomaalida iyo wadaniyadda aynu ninaha. aad iyo aad baa mahadsanta, waa su-aal muhiimsan, aad iyo aad muhiim u ah. Cabdullaahi ow, adigoo mahadsan, laba shay waa inaan horta kala ogaanaa. ummada Soomaaliyeed gumaystihii kala qaybiyey, reer galbeedka 1804 kala qaybiyey, 1804 inay baan jeclahay, haddana khaldanayn, wuxuu kala qaybiyey gobollo ilaa 5 macnaha. sidaa daraaddeed qofka Soomaaliga si uu wadan u noqdo mararka qaar waxaa laga yaabaa in iskaga hor yimaadaan, isku dhacaan Soomaali inuu yahay
iyo inuu macnaha Soomaaliyan yahay aan afqaad ku hadlay salaam waxaa la yiraahdaa Soomaalida Kenya degan waa Soomaali Kenyan ku Ethiopia waxaa waa Soomaali Ethiopia ku nool salaam Djibouti ayadana waa jamhuuriyad laakiin waa Soomaali marka saad raadeed intaan moodana mas'uuliyadda ma hana gudbi waxaan jeclaan lahaa inuu qofka Soomaaliga fahmo qof kastoo Soomaali meesha raba ku noolaado wadanku doona hasta ama jamhuuriyadda ku noolaado ama dawladaha dariska ku noolaado ama Djibouti xor ku noolaado ama dadka dibadda joogay horta inuu ogolaado inuu Soomaali yahay calaamada koobaad ama waxa waaye astaanta koobaad lagu garanayo Soomaalinimada kadib marka qofka markuu Soomaali ogolaado laga yaabo wadan uu ku nool yahay Soomaaliya ku nooshay Kenya Ethiopia kale la barasho looga baahanaya waa midii Soomaalinimada waa inuu wax ka bartaa oo qoomiyadii ah waa inuu wax ka bartaa sababtoo ah asaga adu Soomaali ka tago tusaale wadanka aan joogno kale qoomiyadaha ku nool ma noqon karayo Soomaali waa la ogol yahay marka wuxuu ku khasbanaanayaa qofkii Soomaaliga ahaa marka jamhuuriyadda Soomaaliya ku noolayn wuxuu ku khasbanaanayaa inuu ku ti Soomaalinimada oo qoomiyadii ah taariikhda u barto oo jeclaado kadib uu la yimaado wadankiisa gooni ugu noolaa oo kadib ayadana aqoontii wadankaas ku noolay asuna ka tagay Soomaalinimadiisa baayada muhiim ah soo shaqada salaatay muhiimka Soomaaliya ma wadadeen Suudaaniyiin maaha طبعا موضوع بلارن حكومتنا waxay u baahan tahay aqoon iyo baaris iyo xubaanta in موضوع labaad baan kaga hadli doonaa Cabdimajiid Soomaalidu ma wadaniima ma aha kormo qofku wadani noqdaa kormo soo wadani noqon laakiin Maxamed baan rabaa inaan ku laabto oo Maxamed wadaniyada iyo Soomaalida maxaa ku daray lahayd inta Cabdimajiid runtii mawduucan marka waliba si gaar looga sii hadlo dadka Soomaalida iyo wadaniyada waxaa moodaa in isku dhaxyacsanaan badan ay ka jirto sababtuna waxa weeye waxaan marka hore qeexid u baahan qofka Soomaaliga ah iyo wadanka Soomaaliya wadanka Soomaaliya la yiraahdo iyo qofka Soomaaliga ah sida hadda adduunku u dhisan yahay waa kala labo waxay laba u kala yihiin qofka Soomaaliga ah sidaad sheegtay Cabdimajiid wuxuu ku nool yahay wadamo kale oo aan Soomaaliya ahayn Jamhuuriyadda Soomaaliya aan ahayn Jamhuuriyadda Soomaaliya oo wadanka la yaqaan oo xuduudda gaarka ah leh oo maaragtay calanka gaarka ah leh oo dadka ku noolay dadka Soomaaliyeed ay yihiin cid kale oo aan Soomaali ahayn aysan ku noolayn laakiin Soomaali kale ayaa jirta oo wadamo kale ku nool oo Kenya ay ka mid tahay Ethiopia ay ka mid tahay dadkaas waa dad Soomaali ah marka ay Soomaaliya yimaadaan dadkaas oo kale ma jiro wax iyaga gaar u soocaya oo oranaya adigu waxaad tahay Soomaali Kenyan ama adigu waxaad tahay Soomaali Ethiopian saadaradeed xaqa waxa kale ama ka horeeya Soomaaliya ma jirto wax qeexaya oo sharcigaas Soomaalidu meel ay joogtaba waa Soomaali marka sharci hadda saa u qoran oo saa u kala qeexayana ma u jiro sharciyada waa la qaataa sax oo Soomaalidu wadamadaas waa degan tahay waxay ku leeyihiin sharciyadooda waa haystaan ka Soomaaliyana waa kii ay ka soo wada jeedeen asalka ah weeye marka isku dhaxsanaantaas laftigeeda waxay keentay qaran burburkeena qayb bay ka tahay oo tusaale ahaan markii 60kii aynu qaadanay xorriyadda ay qaateen goboladii waqooyi iyo koonfur ujeedooyinka ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa in la baadi goobo goboladii kale ee Soomaaliyeed ee maqnaa marka Djibouti ma aysan maaragtay xor ma ahayn oo Faransiis baa markaa gumaysanayay labada qaybood oo kalena Ingiriiska ayaa qaybtaasna Ethiopia ku daray qaybtaana Kenya ku daray 63 tanna xornimo wada qaadan doonta Kenyaanku Ethiopiana iyadu xor bay markaasi sii ahaydo
qeyb Soomaaliya ka mid soo wadanka gobolada Soomaaliya qeyb ka mid ah ayaa iyadana Ingiriisku haystay. Markii labadii gobol ay xoroobeen 60kii 64 ay soo baxay sharciga midowga Afrika oo oranaya xuduudihii isticmaalku ka tegay ayaa sidoodii maaragtay sharci u ah oo saas ah u taageerayna lamana bedeli karo. taas waxay caqabad ku noqotay dadkii maaragtay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo markaa baadi goob ugu jiray goboladii kale Soomaali weyn mawduuca inay maaragtay dhaliyaan. marka taas lagama harin 64 dagaal baa la galay xoog leh oo Itoobiya iyo Soomaaliya ay galeen 77 sidoo kale wuxuu ku saleysnaa dagaaladaasi ay salka ku hayeen waxay ahaayeen dhulka Soomaalida in la mideeyo hal dawlad uu noqdo marka dagaaladaasi waxyaabaha wadanka markii dambe dib burburka u keenay qaybtii Soomaaliya ayuu kamid yihiin ilaa ay haddana dadka Soomaaliyeed weli maaragtay ma aysan niyadoodii kama aysan go'in Soomaaliyeed waxa la yiraahdo. marka waa mawduuc maaragtay ballaaran oo runtii salkana la gelaya halkaas oo u baahan si toos ah iyo si dadbanba loo qeexo. waxyaabo badan oo maaragtay adduunku ahanibay iyo hawlo badan oo kale baa laga yaabaa in luqta la gasho. laakiin markaan soo ururino waxa weeye dadka Soomaalida wadankooda way jecel yihiin xitaa kuwa Soomaalida ah ee wadamada kale ku nool Soomaaliya way jecel yihiin inay wax ka halaabaan ma rabaan inay wax u hagaagaan bay doonayaan laakiin waa lagu shaqaynin. mushkiladu halkaas ka imaanaysa waa lagu shaqaynin taasna asbaab bay leedahay sababo ayay leedahay gadaalkaasi faahfaahin doono. laakiin wadankooda ama dalka Soomaaliya dadka Soomaalidu way jecel yihiin ayagu way jecel yihiin Soomaali ahaan oo marka hadda banaanka loo baxo oo kale iyo garan kartaa dadka Soomaalidu sida ay isu raadsadaan oo isu urursadaan oo aysan isu kala soocin markay banaanka u baxaan waxa ka direeyay dad mido oo gooni ah oo isjecel oo maaragtay waliba hadda markay gargaarka iyo hawlahaas yimaadaan in maaragtay wax la istaro iyo Soomaalidu isma kala qaybiyaan. marka waa dhaqan wanaagsan Soomaalidu waa isjeceshahay laakiin waxba ka maqan waxaan gadaal aan ka faahfaahin doonaa. aad ba mahadsan tahay Maxamed Owe. qaybta labaad barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa siyaasadda iyo wadaniyadda iyo sida wadaniyaddu mararka qaarkood ay uga leexato wadadeedii saxda ahayd oo loogu talagalay in ay uga leexato sida ay patriotism iyo jacaylka wadanka iyo qabyaaladda iyo reernimada ay isu dhex galaan. barnaamijyo fara badan baa is saaran oo runtii in la kala furfuro u baahan oo ayna ku koobi karin xalqadan oo keliya. barnaamijka marka qaybta dambe ayaan ku faahfaahin doonaa.